magaalada Washington. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Britain oo goordhow toorey lagu dilay. waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada iyo dibadhaceeda Soomaaliya. doorashadii la filayay ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday waxaanan anugu qabaa eedeeda waxaa iskale iyo dibadhaceeda maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada. mas-uuliyad wadareed waaye inkastoo la kala leeyahay qofba meelay ka leedahay mas-uuliyaddaas cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka iyo bini'aadanimada ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaarayaan 7,250 qof. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xiriirka arrimaha bini'aadanimada ayaa war qoraal oo uu soo saaray maanta wuxuu ku sheegay in 24 qoys oo kale ayagana la dejiyay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Buuhoodle. sida uu sheegay xafiiskaasi magaalada Ceergaabo ayaa iyadana waxaa ka soo barakacay 75 qof oo gaaray Baydhabo iyo sidoo kale Gaalkacyo kadib markii sida la sheegay mas'uuliyiinta deegaanku ay u qabteen in dadkaasi ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay uga baxaan halkaasi ilaa 21 bisha Oktoobar sida lagu qoray warbixinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada UN OCHA. hay-adaasi gargaarku waxa ay sheegtay in ilaa 400 oo qoys amaba dad gaaraya 2,400 oo qof lagu wargeliyay inay ka baxaan magaalada Ceergaabo marka la gaaro 21 bishan. soo saarista qasabka ah ee dadkaasi ayaa walaac waxa ay ku abuurtay hay'adaha qaramada midoobay sida lagu sheegay xafiiskaasi warka ka soo baxay. waxaa kale oo la sheegay in dadkaasi la soo barakiciyay ee sheegeen in ay kala kulmeen dadka ehelkooda ah iyo sidoo kale caruurtooda iyo hantidooda oo ay ka soo tageen qaarkood. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay si xooga u cambaaraysay tallaabada ay qaadeen mas'uuliyiinta Somaliland ee soo saarista dadkaasi oo ay ku tilmaameen wax ka baxsan bini'aadanimada. hase yeeshee mas'uuliyiinta amniga ee Somaliland ayaa waxay difaaceen tallaabadaasi waxaana sheegeen in loo qaaday sababa dhinaca amniga ah. David Amis oo isagu ah xubin ka mid ah baarlamaanka dalka UK ayaa dhintay kadib markii toorey lagu dhuftay dhowr jeer jimcaha maanta meel banaanka ka ah kaniisad ku taalo koonfur bari dalkaasi England. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Belfast meel la yiraahdo kaniisad u dhow oo kaniisad ku taalo oo aan ka fogeyn xafiiskiisa halka uu yahay sarkaalkaasi tooriyeenta loo geystay. booliiska ayaa waxay sheegeen in hal qof ay u qabteen arrinkaasi kadib markii ay dhacday isla markaasina ay heleen tooreyda ninkaas uu dilka ku geystay. waxaana ay sheegeen in qofkaasi la xiray haatanba waxaa naloogu yeeray ayay yiraahdeen booliiska. dhacdadaasi markii ay dhacday kadib 12 duhurnimo ayay ahayd xilliga maanta oo jimco ah oo 15 ay ku beegan tahay bisha Oktoobar. waxaan gaarnay goobta ayay yiraahdeen oo uu dhaawac ku ahaa xildhibaankaasi waxaana markiiba daawo u fidiyay gurmadka kooxaha ah ee halkaasi gaaray. inkastoo booliisku ay sheegeen markii halkaasi ay gaareenba in nafta ay ka baxday xildhibaankaasi. nin 25 jir ah ayay boolisku sheegeen inay dhacdadaas u qabteen waxaana ay timid arrintaasi kadib markii sida la sheegay ninkaasi iyo toorey dhiig lehba meesha laga helay. haatanna waxaa socda baaritaan arrintaasi lagu ogaanayo waxaana raadinaynaa ayay yiraahdeen booliiska ciddii kasta ay xiriir la lahayd amaba ninkaasi kula lug lahayd falkaasi tooriyeenta ah. boqolaal muhaajiriin oo ku jira xabsiga Cayn Zara ee dalka Liibiya ayaa waxay ku noolyihiin xaalado adag kadib markii dad kor u dhaafaya 1,000 qof oo caruur u badan la sheegay in xabsigaasi la isugu geeyay iyadoo howlgalkaasina ay cambaarayeen hay'adaha xuquuqul insaanka. ilaalada xabsigaasi Cayn Zara iyo mas'uuliyiinta Liibiyaba waxay sheegeen in muhaajiriinta dadkaasi ay siiyaan cunto, hoy iyo sidoo kale daryeel caafimaad. laakiinse muhaajiriinta ayaa waxa ay sheegeen in qaar badan oo kamid ah aysan haysanin daryeelka ay u baahan yihiin. labadii toddobaad ee lasoo dhaafay mas'uuliyiinta magaalada Tripoli ayaa waxay xireen kumanaan dad ah waxaana ay ku soo qabteen arrintaasi kadib howlgal halkaasi ay ka sameeyeen.
xaaladaheenu waxa ay noqdeen mid argagax leh xataa hadda oon ku sugannahay meel ammaan ah weli dhab ahaantii waxaan qabnaa baqdin weyn sidaas waxaa yidhi cabdulxaalim xasan oo ah 24 sano jir ka soo jeeda Eritrea wuxuu kaloo sheegay inay si ka baxsan bini'aadanimada loola dhaqmay marka la eego xabsiga ay ku jiraan iyo dhibaatooyinka soo wajahay. wararka ka imaanaya haddii aan ku bilowno dalkaasi Britain waxa ay sheegayaan in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi oo lagu magacaabo David Amess sida warkaba aad ku maqlayseen uu dhintay kadib markii tooreeyeen lagu sameeyay dhowr jeer asaga oo ku jiray kulan ka socday deegaan aanan ka fogeyn halka la yiraahdo Essex oo ku yaala duleedka London. David Amess ayaa waxa uu ka tirsanaa xisbiga dhinaca midigta xiga ee Conservative-ka loo yaqaano. warbixin amurtaasi ku saabsan London waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dilka ayaa loo geystay xildhibaankan oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee dalkan ee loo yaqaano Conservative-ka. Sir David Amess ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo dhowr jeer lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa goob uu ku qaabilo dadweynaha oo ku taala deegaanka laga soo doorto ee Leigh ee degmada Essex oo aan aad uga fogeyn magaalada tan London. xildhibaanka ayaa da'diisu waxay ahayd 69 jir waxaana weerarka u dhacay duhurkii maanta ah. waxaa xildhibaanka laga soo doortaa deegaankan tan iyo 1997 waana ninkii ugu horeeyay oo xildhibaan noqda 1983. booliska Essex ayaa waxaa bartooda Twitter-ka ay ku qoreen inay xireen nin 25 sano jir ah oo looga shakisan yahay in dilkani uu geystay. ambulasta dhinaca caafimaadka iyo booliska ayaa si weyn ayagana looga dareemayaa deegaanka oo hadda ay gaareen iyadoo xildhibaanada inta badan deegaanada guud ahaan ku hareereysan goobta dilku uu ka dhacayna ay si weyn uga argagaxeen. booliska deegaankaasi ayaa waxay rumaysan yihiin in weerarkani uu geystay qofka la qabtay oo keliya oo aanu jirin dad kale oo loo xiray. waxaa la baajiyey shirkii golaha wasiirada waxaana sidoo kale hoos loo dhigay calanka dalka gaar ahaan marka la eego xafiiska number 10 Downing Street ee ra'iisul wasaaraha. inta badan wasiirada dalka iyo mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka tacsiyeeyay waxaana ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada iyo wasiirka cadaaladda ee dalkan Dominic Raab. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London. ridwaan xaaji cabdiweli aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay asaga ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinaya dilka xildhibaankaasi UK lagu dilay. markana bal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaad kastaba maalin walbaba aad dhegeysataan xiliyadan oo kaleeto magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seenab Abuukar Maxamed. kulanti waxaan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iyo iminka aan la ogeyn waqtiga ay bilaabanayso. waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiga Cabdiraxmaan Cusmaan Jimcaale oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada. su-aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo wasiir xareed, doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha waxay ahayd in mar hore dhacdo oo dalka ka bilaabato. maxaa ragaadiyey oo suurtagelin waayey ee aragtidaada? doorashadii la filayey ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday, marka waana ka xunnahay. waxaanan anugu qabaa eedeeda waxaa iskale iyo dibudhaceeda maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada oo ayagu la yidhi adinku doorashadii qabta oo qaabeeya oo ayagu hawsha waday. eedda ayagaa iskale. waxaad dareemaysaa haddana ma muuqato sansaan doorasho. waxaad dareemaysaa 54 xubnood
oo aqalka saraa oo ku xiraa afkooda nin walba afkiisa ku xiraa yaa waxay hadda qaadatay 5 bilood bay maraysaa hadda oo weli aysan hadda soo dhammaanin marka oo aad moodid 6 xubnood ay dhiman yihiin 4 Jubbaland iyo 2 Galmuduga waxaana nasiib darro ah Jubbalandtii weliba bilowday Axmed Madoobe oo isagu doorashadaba bilaabay in 4 xubnood kala bar ay weli dhiman yihiin waa wax lala yaabo weeye arrintaasi walaaceeday leedahay walwalkeeday leedahay qof kasta oo Soomaaliyana maanta waa dareemi karayaa rajada doorashadaasi sida ay tahay sida wax u socdaan waxay ahayd in ergeedii la xereeyo 25kii bishii 8aad 2021 golaha shacabkana waxay ahayd in isagana la bilaabo hawshiisa 10kii bishii 9aad 2021 madaxweynaha waxay ahayd in la doorto oo doorashadiisu ay bilaabato 10kii bishii 10aad 2021 maanta 15kii Oktoobarna waa muuqataa inta ay dhaaftay marka walwalkaas waa mid muuqda waana jira siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale sidaad u aragtaa dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha adeero horta dalku wuxuu ka yimiday maxaan ku yiraahdaa meel adagoo ka yimiday oo maxaan ku yiraahdaa la kala tagay oo dadkii shaki kala galay oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahaygi subhanahu wa ta'ala ay markii daba xaaladda noo dejiyay marka arrimahaas oo dhan laga yimaado wixii shirara la galay waxa la soo saaray jadwalyaal la soo saaray guddiga maxaan ku yiraahdaa hawshii lagu wareejay ilaa hadda maxaan ku yiraahdaa wixii dibay u dhaceen haddii qof la tiraado waxay dibay u dhaceen oo maxaan ku yiraahdaa lama hayo marka madasha wada tashiga qaranka iyo guddiga iyo intii ka hawshaas golaha xukuumadda dhammaan arrintaas way wadaagayaan haday maxaan ku yiraahdaa dib u dhacaas in waxaan isleeyahay inay arrin ay wadaagayaan ay tahay waayo guddiga waxa laga rabay maxaan ku yiraahdaa waqti uu hubo oo shaqadiisa uu maxaan ku yiraahdaa u muuqato oo maxaan ku yiraahdaa inuu ajandaha u sameeyo maxaan ku yiraahdaa meel mugdi inuu ajanda ku sameeyo yiraahdo Oktoobar ugu dambeyn madaxweynaha la doorana arrin sax ma ahay sidoo kale dadkii sheergareynay oo guddiga wax la sheergareynay haday xukuumadda ahaan lahayd ra'iisul wasaaraha amba madasha guud ahaan ha noqotee ayagana maxaan ku yiraahdaa waxa moodaa inay shaqadoodii ay maxaan ku yiraahdaa hore ugu baxeen marka arrintan maxaan ku yiraahdaa sidii u weyn tahay inay isaga xil saarin ayaa noo muuqata mas-uuliyad wadareed waaye inkastoo la kala leeyahay qofba meel ay ka leedahay mas-uuliyaddaas cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra'iisul wasaaraha iyo guddiga maxaan ku yiraahdaa doorashooyinka heer federaal iyo heer maxaan ku yiraahdaa state waxaa la rabaa marka caqabado marka soo dhuntahay shacbiga waa inay wax fahamsiiyaan ay yiraahdaan waxaasaa jira haddii shib la yiraahdo waxay noqonaysaa maxaan ku yiraahdaa mas-uuliyad darro weyna meesha ka muuqanaysa marka waxaan leeyahay waxa naloo sheego Dr. Mukhtaar sida laga wada dhawaajiyay waxaa muuqata mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad jadwalka doorashada horey laysugu raacay haddaba maxaa keenay dib u dhacaasi dhankaaga aniga fikirkayga waxaan qabaa waxa ay tahay arrintan arrin oo ay tahay farsamo oo ay wada ogyihiin ayaan filayaa oo dhammaan maamul goboleedyada ha noqdaan iyo doorashooyinka oo idil waayo hadda waxaa laga hadlayay saaxiibaday ka dhawaajiyeen arrimihii caqabadaha ugu muhiimsanaay laakiin aniga fikirkan qaba gooni wuxuu sii yahay xataa haddii maamul goboleedyada caqabad ay ka taagan yihiin meeshan waxaa jiro 2 maamul ayaa meeshan jooga oo maamulkii Somaliland iyo kii banaadiriga ahaa xataa way awoodaan inay ayaga xataa hordhac ahaan in la qabto la gudagalo la sameeyo ayagoona caqabad badan aysan ku imaanaynin sidii loo qabtay aqalkii sare oo Somaliland oo ahaa iyo golihii shacabka oo 2 gole oo Somaliland iyo banaadiriga in la qabto la soo saaro taa waxay ku tusi lahayd in hordhac oo hore loo socdo laakiin tiiba looma jeedo maamul goboleedyadana waxa weeyaan afka juuqda gabay nimankii ahaa loo xil saaray guddiga doorashooyinka ayagana wada hadal ma jiro xukuumaddan waa xukuumad shacab waa golaha shacabka iyo xukuumad federaal oo xukuumad doonaya shacabka Soomaaliyeed meel walba arrin ay jirto inay ogaadaan maxaa sababay maxaa loo aamusan yahay xagee wax ka jiraan arrimahan kale maamul goboleedyada ee wada aamusan yahay aniga waxaan filayaa arrin ee la wada ogyahay weeye oo dhammaantooda ay ka warhayaan oo is wada ogyihiin maybe inay sugayaan dhaqaalahan intay kasoo dhacayso oo markay dhaqaalaha helaan ay dhaqaajiyaan caalamka ay tusaan oo anaga diyaaranahay lacagta soo shuba
aniga fikir ahaan taasaan wadaa oo saaxiibadii aan rabaa bal inaan arrintaas aan la wadaago. haddii aan dib kugu soo laabto wasiir xareed waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan jimcaale iyo doctor mukhtaar waxay ka dhawaajiyeen amaba ay ku doodayaan in dib u dhaca muuqda ay tahay waxa guud mas-uuliyadda wadareed dhinacyada loo xilsaaray howsha madasha qaran oo guud ahaan wax ay wada ogyihiin arrintu inay tahay. adina cid gaar baad u nisbeynaysaa in ay leedahay dhaliisha gaabiska amaba dib u dhaca muuqda ee hadda jira. maxaad u sababeynaysaa in qolo gaar ah aad ku riixdad in dib u dhaca ay mas-uul ka tahay? waa mahadsan tahay Saynab. waxaan ku sababeynayaa horta saaxiibada aan kaga duwanahay mas-uuliyadda wadareed ma jirto oo waxaysan u jirinin guddigan doorashooyinka siid iyo fiid dhowaan bay yimaadeen labadaa guddi. ra-iisul wasaaruhuna laftigiisu waa cusub yahay oo hadda nin la eedeynayo ma ahan oo wixii tabartiisa hadda waa u wada sida ii muuqata. laakiin 2 sano ku dhowaad wixii hawshaan waday oo baarlamahan hadba wax ka qabanayay oo hadba meel isugu imaanayay 5 maamul goboleed bay ahaayeen. weliba 2dii maamul goboleed oo ugu kululaa Jubbaland iyo Puntland oo hawsha karkarinayay weeye waxa hadda aad moodid inaan aysan muuqan siday wax u karkarinayeen. anigu meel laga galay ma garanayo, wax dabciyeyna ma garanayo, madana ilaahayeen baa muuqan waaye. anigu ma garan kara 2da maamul. hawshana iyagaa aada u ololeynayay oo aad ka dareemaysaa guddigan hadda doorashada oo fiid ayaantii dhowdu way soo saareen tablekii way soo saareen. markay soo saareen waa lagu qabsaday, waad ogeydeen kulligiin waad la socotaan, soomaalidao dhan waa ogeyd. heer waxaaba la gaaray guddoomiyihii la yidhaahdo mooshin baa lagaa keenaya oo lagu ridayaa oo guddigii la kala qaybiyo maamulada qaar ay la soo hadlaan muxuu ahaayeyto ergadii uga jirtay halkan oo ay yidhaahdaan timetableka ka noqda ay soo saareen guddigii doorashada. marka bahal sidaa gacmaha loogu dheganaa oo dabranayd, ra-iisul wasaaruhuna nin cusub, guddigii yimidna timetablekoodii iyo shaqadii loo idmaday lagula dhegay oo lugaha lagula dhego oo la dabray, xaggee see mas-uuliyad wadareed loo noqonaya? anigu waxaan qabaa waa in la weydiiyo oo la yidhaahdo 2dii maamuloo hawshaan karkarinayo Jubbaland iyo Puntland maxaa karkii dhimay waadinkii ololeynayay? haddana ma muuqato 2dii maamul goboleedoo waday baa maamulkii Jubbaland 4 hadda dhimanta. maxay u dhimanta? maaso in la isweydiiye maaha, isagaana bilaabay. marka anigu ma qabo inay tahay dibidhacaasi wax la wada leeyahay, waa wax maamul 5 maamul la leeyihiin, khaasatanna 2da maamuloo Jubbaland iyo Puntland baan anigu leeyahay baa arrintaa dabraya. anigu sababay ayagu uga dan leeyihiinna ma garanayo. haye cabdiraxmaan jimcaale, ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo wasiir xareed in 2da maamul ay eedda leeyihiin, mise sidaad hore u xustay arrintu waa mid guud ahaan laga siman yahay? xaaladda horta waxaa aan isla soo joognay 2020 iyo 2021 oo hadda dhammaan rabta. intaasaan lasoo daadahay oo weji waa mar soo baxay. guud ahaan markii intaa la fiiriyo oo caqabadii hore la fiiriyo oo maxii lasoo maray dhinacyadan laga eego meesha haatan taagannahay la yimaado. marka maxaa qiimeynta maxaa nooga soo dhexbahaya? waxaa nooga soo dhexbahaya waxa weeye okay, waxaad samaysan maxaan ku idhaha madar la yidhahdo wada tashiga qaranka oo hawsha hogaaminaysa. waxaa noo soo baxday maxaan ku idhahdaa 2 guddi oo guddiga federaalka iyo guddiga steedyada ah. waxaa noo soo baxday maxaan ku idhahdaa in kale oo guddiyaah oo fara badan oo dhinacyaha ka toogta amba dib u heshiisiinaa noqdo hawsha kaabaya. okay, hawshii waa socotaa, caqabadaha jira. marka caqabaduhu maxay yihiin? sida uu ka dhawaajiyey awqaate dhaqaale xumo inay jirto waa laga yaabaa, dhaqaale la sugaayo. arrintaa waa arrin macquul oo la dhihi karo, laakiin aniga ima muuqanayso shaqa maxaan ku idhahdaa culayskii wadadii dheereed oo lasoo maray dhibaataday abuurtay ayaan weli ku jirnaa. marka wax kale oo cid aan maxaan ku idhaha maanta aan u saarinayo oo le hebel ama hebla khaladkaas le aniga ima muuqato. waxaa ii muuqda oo kaliya oon shaqadii inay gaabis tahay. waxaa kaloo ii muuqda in maxaan ku idhahdaa waxaanu ay yihiin wixii ka dhashay wadadii dheereed oo lasoo maray oo gaagaabiska hadba mar keenaya oo wax meel ka soo baxaya albaabo mar furmaayo. marka taas waxa aan isleeyahay marka hadday ku
ku daraan marka madata wadatashiga qaran iyo guddiyada iyo iskaashadaan iyo shacbiga kaashadaan anigu waxaan aaminsanahay marka in wadada lasoo gaabi karo laakiin waxaa keenaya wadada inay dheeraato waxa la awoodi waayey in lana yidhaahdo maxaan ku idhahdaa waqtigii jadwalku waa dhammaaday markaan aragnay waxaan ku darnay intaas waa awoodi waayeen marka caqabadaas iyo leyduhu way jirtaa taasna waxaan u eedayna waa shaqo xumo ma ahana maxaan ku idhaha ku talagal maaha waxaan siinayaa doctor mukhtaar aniga fikir ahaan waxa aan qabaa waxa ay tahay mawduucan ay raalli ka wada yihiin dhammaan guddiyada doorashooyinka seed iyo feed iyo wadatashiga qaran ee maamul goboleedyada dhammaantood inay isku raacaan aamusaan waxaa jiro caqabad guud ayaa taagan sababtoo ah intooda xataa mid unbaa ka hadli lahaa intooda mid unbaa wax dhaqaajin lahaa intooda mid unbaa wax samayn lahaa aniga fikir ahaan waxaan qabaa xaaladda waxbaa jiro oo ayagoo dhan oo saameyn culeys ku leh culeyskaas waxaan filayaa in ay haysato ayaga dhammaantood laakiin waxaa loo baahan yahay in cilada meesha ay jirta ay ka hadlaan guddiga doorashooyinka hadday dhaqaale u baahan tahay ay ka hadlaan oo shacabka soomaaliyeed qabada taagan ay u sheegaan maadaama ummadda soomaaliyeed ay tahay xukuumad shacabka waxay dhegeysanayaan oo la rabaa adeegayaal weeye dadkan waxay u adeegaan waa bulshada inay la socodsiiyaan caqabada hortaagan waxaa hortaagan waay doorashada loo dhaqaaji waayey aqalka sare waa la dhaqaajiyey maamul goboleedyada dhammaantooda hirshabelle daahfurnaantii ka dhacay waa la arkay somalilan sidoo kale hadda way xariisan yihiin guddiyadii banaadiriga sidoo kale qolooyinkii somalilan waxa ay sugayaan waa yaabana wax hortaagan ani waxaan filayaa in arintaasi ay tahay mid dhammaantooda wax ay wada ogyihiin dana siyaasadeed ayaa jirto iyo dana dhaqaale taasaan aniga fikir ahaan u malaynay iyo dana siyaasadeed oo hortaagan sida uu ahaa qorshaha jadwalka doorashada muddadii loogu talagalay hadda dib ayuu ugu dhacay maxaa ka dhalan kara xareed dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday waa mahadsantahay Zainab waxaa dhacaya oo ka dhalan kara waxaan fiicnayn sida hadday doorashadaas dib u dhacdo isqaqabsi rajo xumo sababi kara gacan ka hadal waana muuqataa ifafaalaheedii oo marka waxaan oran lahaa doorashada waa in waqtina loo cayimaa loona yeela nimankan mas-uuliyiinta ah oo madaxweynayaasha ah oo intaas oo ballamood qabtay ballantii aan fulinin intaas oo ballamood bay qabteen ummadda soomaaliyeedna ka warsugaysay rajo xumaa muuqata iyo hubanti la-aan haddaan doorashadaas hadda laga farbuuxsan oo weliba aniga waxaan qabaa prime ministerku inuu arrintaa ayada ah annaga waxaan waana soo mareen xilligayagii waxa weeye dhaqaalena ma jirin 880 ergey baan muqdisho isugu keen meel walbaan ka keen oo ka soo ururin waa dejinay waxaan waana soo wada mareen 2000 waxaan ka hadlayaa iyo 2012 waa tii doorashadii aan gaarsiinay marka waxaan waa soo marnay dadkuna waa soo maray waxaa la rabaa adkaysi iyo isku kalsoonaan iyo ilaahay qofku inuu ku kalsoonaado dadkiisana ku kalsoonaado hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaan dib ugu noqday 54 xubnood oo inaan horey u sheegay baan u malaynayaa baa 6 ka dhimanta 5 biloodna waa la haysay 275 xubnood intee bay qaadan kartaa adaan ku weydiinayaa weliba jifooyin leeyihiin beele leeyihiin qayladooda nabadoonada isimada xagga elders marka iyadii laftigeedii anigu waxaan qabaa doorashadan 2021 bay laakiin 2022 inay tegi doonto waa magaciina waa isbedelaya waana ku ceeboobi doonaan dadkii waday oo mas-uuliyiinta ceeb baa halkaa kaga dhici doonta hadda haysdaba qabteen muddaa u dhiman 2 bilood baa u dhiman doorashadaasi aysan dhaafin 2021 inkastoo aniga aysan iiba muuqan bay fafaalaheedii waxaan siinayaa cabdiraxmaan jumc waxaan filayaa inuu dibadhac jiro waa isla qirannahay waana isla wada aragnay guud ahaan shacbiga soomaaliyeedna way qiran yihiin beesha adduunyada na taageeraysaana way qiraysaa waxaan rajaynaa marka wax kastoo la qabto oo binu aadan qabto waxyaabo badan oo kusoo kordhaya oo ka degaya oo kusoo kordhaya jira habeen iyo maalin waxaan kaloo dareemayaa marka welwelka waa la qaybsanaa walaalahay amba maxaan ku idhahdaa ragga saaxiibadeeya ama ummadda soomaaliyeed waa la qaybsanaya laakiin waxa meesha aan laga tegi karin meesha aan ka nimidnay waxaan ka nimidnay maxay ahaayeen intee khataraan galnay
khatartii waxaa ka soo baxay marka in ilaahigii subxaana wa tacaala hay ou na gaarsiiyo inaan maxaan ku idhaha guddiya dhisanno madal ka mas-uula wadatashi geedi socodka doorashooyinkana ay samaysmanto oo ra-iisul wasaaruhu guddoomiye uu yahay iyo isteedyada gobolada iyo isteedyada dalka okay hadda waxaa la doortay aqalkii sare waa inkastoo wax ay dhimo yihiin waxaa ii muuqda in maxaan ku idhahdaa sanadkii inta ka dhiman ay wax maxaan ku idhahdaa baarlamaanku soo gebagaboobi doono inta sanadka hadda aan ku jirno oktoobar aan marayno 15 wixii ka dambeeyay inay soo gebagaboobi doonaan ayaan rajaynayaa haddaana caqabad guud oo maxaan ku idhahdaa marqaati arrintaasaa marqaati ka ah la dhihinayna dee inay nagu imaanay sida hadda wax u socdaan hadday u socoto waxaan rajaynaa habeenada dhow inaad isxaydi doonaan ra-iisul wasaaraha iyo maxaan ku idhahdaa dadka naga sugaya hawsha kabacdina u dhaqaaqi doonaan maxaan ku idhahdaa la aado goobihii doorashada waxaan kale oo aan dare dibudhac waa jiraa laakiin meesha maxaan ku idhahdaa 2022 iyo 2023 maanuhu ma qabo 2000 waxaa qabaa 2020 inay wax noogu soo gabagaboobaan waxaan kaloo aan maxaan ku idhahdaa anaan maankayga ka degaynin halkii laga yimiday oo dadka maxaan ku idhahdaa kala shakiyey aan xusiisto isteedya ka yimiday gobolada inay askar soo wateen maxaan ku idhahdaa aan shalashikow intuu gaaray marka alxamdulillah hadda ruuxaas way baxeen waqti dheer inay baxeen waana welina waa jiraan wixiiaas maalinba wax sii baxayaan marka waxaan anagu aaminsanahay insha allahu maalmaha soo socda inay maxaan ku idhahdaa tallaabo shacbiga soomaaliyeed ay ku riyaaqaan ay imaan doonaan aan rajaynaa ma aad uma rajo beeli doctor mukhtaar rajada oo cabdiraxmaan jumcaale muujiye adiga ma ku muuqata ma aragtaa inay meesha tahay sayna walaal rajo iyo uma malaynayo inay muuqato sababtoo ah xukuumadda uu hogaaminaye madaxweynihii muddaxileedkiisii u dhammaaday haddaad fiiriso maandeedkoodii waxaa lagu leeyahay xukuumadda markii la doorto muddo 3 sano markay hayaan sanadka ugu dambeeya waa inay doorashada ay diyaashaan gogol xarkooda ay sameeyaan ani waxaan leeyahay farsamo waxaa jirta oo ah technicality delayed waxa la yidhaahdo madaxweynaha waxaa lagu leeyahay waa ilaaliyaha dastuur qodobka 87 haddaad fiirisid waxaa waajibkiisa ay tahay in uu ilaalisho dastuurka muddaxileedka doorashada lagu qaban lahay tiibuu gabay 4 sano iyadoo ay jirto iyo 7 bilood oo zaa'id ah kadibaa ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta qabtay haddaad fiirisid ra-iisul wasaaraheenii hore khayre wuxuu yidhi extension ma shaqaynayso extension dadbanaay ayaa weli socdo oo caqabadihii aqrooblena wuxuu la soo kulmay meel caqabad wada taagan maamul goboleedyada oo fareenka la madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday istil xataa wax ka soconaya meesha jiran hadday dhaqaale rabaan ummadda ha usoo bandhigaan waxyaalaha caqabadaha uga ummadda waa in loo sheegaa meesha extension dadbanaa imaanay weli sii socdo hadda waan ku raacsanahay wasiir xareed 2022 inay sii gaarayso dhammaadkeed inay sii noqoneen sababtoo ah hadda iyo waxa laga hadlaya 101 qofood min hal xildhibaan imisaa laisku keenaya ergo waqti imisaa la gelinaya imisaa wax lasoo daadkureynaya waxaan filay waa extensionkiioo dadban ayaa meesha ka socdo ayaan leeyahay sababto maamul haddaad fiiriso doorashooyinkan qolooyinkan seed iyo feed xukuumaddan hadda oo roob la qabtay ayagoo dhisan ayuu ku yimid waxaad aragtaa weli farsamadu xataa somalilan maa la doorto waxaa jooga weli still gobolka banaadir maa la doorto dhammaantooda win ay u tahay hadday mor xataa dileed sii noqoto qof walba guul ayuu taagnaanaya sababto wax ka halaabaya ma jiro xafiiskii awoodday weli sii haysanayaan ayay ku fadhinayaan guddigan seed iyo feed mushaaraadkooday qaadanayaan haddii ayaga wax loo doorto keliya inay doorasho sii galaan dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha iyo walwalka laga qabo hubanti la-aanta doorashada arinta doorashada dabayaaqada bishii julaay ayay bilaabatay doorashadii aqalka sare maamul goboleedyada qaar ayaa dhammaystiray kuraastii aqalka sare halka qaarkoodna ay qabyo ku tahay maxay tahay wasiir xareed caqabada hortaagan in lasoo gabagabeeyo doorashada aqalka sare si looga gudbo amaba loo bilaabo midda golaha shacabka 54 xubnood oo ku xiran qof afkiisa inuu qalinka inta qaato 8 xubnood oo maamul laba state baa waxay yihiin min 11 Puntland iyo Somaliland waa min 11 inta kale waa 8 xubnood ma kula tahay daacad haddii laga yahay 5
5 bilood oo madaxweynaha statekaa joogaa isaga ay ku xiran tahay qalinka inuu ku qoro ma kula tahay 5 bilood inay qaadan karto waxa weeye daacad baan laga ahayn waxa weeye horey baan wax loo wadin yacni aniga sida ii muuqata maamuladaasi markii hore waxbaa u muuqday oo hegsanayeen wixii malahayga waana khaldanaan karaa wixii markay meesha ka arki waayeenna waxaa u soo baxday inay markaas ay iska dabraan bahashi oo iska dabranaato haddana waa dabranta inay jiitanto waxaa sabab u ah dadkii awalla waxa weeye waxaan ordayey oo laha waa in doorasho dhacdaa waa in meesha doorasho ka dhacda haddana ayagii baa dabraya oo ay u dabranta anu sidaasaan u arkay haye cabdiraxmaan jimcaale xaggee hawsha ka socon la'da waa aragnay maxaan ku idhahdaa siday wax u socdaan in sidii shacbigu sugayay ama maxaan ku idhahdaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama adduunyaduba sugaysa inaan ahayn waan aragnay bilowgii guddigan maxaan ku idhahdaa golahan la yiraahdo hogaaminta qaranka oo ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo bilowgii ay maxaan ku idhahdaa hawshaas ay bilaabeen ilaa hadda intee caqabadood oo xukuumadda soo ay faraha la gashay caqabadaha horta in meesha aan ka saarno oo dhanka maxaan ku idhahdaa doorashooyinka bis aan aadno dhanka kalena waa inaan fiirinaa mas-uuliyaddu saasay tilmaamaysaa marka caqabado badan sidii dilkii gabadhii qaaliga ahayd iyo maxaan ku idhahdaa wixii maxaan ku idhahdaa aad la socoteen fahad iyo iska daba wareegii khilaafkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay ka mid tahay waa caqabad weyn oo aan runtiiba aan isleeyahay haddaana ra'iisul wasaaruhu cagaha aan u adkaysan in maxaan ku idhahdaa dalku maxaan ku idhahdaa khatar geli lahaa sidaa waa soo socotay ilaa weli wixii caqabadihii way jiraan waxaan aan u baahannahay marka waa sax in maxaan ku idhahdaa sidii gaabis wax u socdaan laakiin caqabadaha inaan meesha ka saarno oo maxaan ku idhahdaa sida maxaan ku idhahdaa waxa soo noqday galmudug aa kala caqabadu ka soo noqotay hirshabeelle lafteeda waxbaa ka jira oo maxaan ku idhahdaa u baahan in la maareeyo maxaan ku idhahdaa jubbaland sidii waxay caqabadihii u jiraan maxaan ku idhahdaa marka kuwii hore taagana kuwa kale soo kordhaya mar walba maxaa keenaya marka siyaasaddaa dhan layskula wadin oo filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha isku dhan u socon marka caqabadu meeshaas waaye mar walbana waxa keenaya waa caqabadii maxaan ku idhahdaa hogaamintii qaranka oo la rabay in hal meel loo wajaho ayaa laba dhan u wajahan laakiin waxa socda oo maxaan ku idhahdaa hore u socda in maxaan ku idhahdaa dhanka kale positive ay jirto dhinacyada looga dhigan yahay waa qiraynaa marka socodkii inuu gaaban yahay caqabadana jiraan horta aan qirno kabacdi waxaa noo soo baxaya maxaan ku idhahdaa waxaan hiigsanayno marka waxaan hiigsanaynaa marka in tartiibkaas aan ku guulaysanaan rajaynaynaa kuna guulaysaan kuna dhiirigelinaynaa xukuumadda iyo madasha qaranka sida cabdiraxmaan jimcaale uu qabo doctor mukhtaar ma kula tahay in khilaafka ka dhex aluulsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay qayb ka tahay waxyaabaha ragaadiyey geedi socodka doorashada iyo in sidii la rabay aysan hawsha ku fulin walaal Zeynab runtii taa waa major weeye waa arrinta ugu muhiimsan waayo extension ayaa la diiday waa in director ra'iisul wasaaraha wax alla wixii wanaag uu sameeyo in gadaal laga furfuro wax alla wixii hor socod loo sameeyo in gadaal laga furfuro way caddahay sababto waxaad aragtaa markii aqalka sare la dooranayay Somaliland wuxuu si cad ugu sheegay in la soo dhammaystiro maamul goboleedyada inta ku maqan si loo doorto gudoomiyihii aqalka sare oo aqalka sare ee baarlamaanka taana ay noqoto ninka ugu sareeyay oo gudoomiye maxkamad gudoomiye baarlamaan yeesho tii waa 4 sidoo ka dhawaajiyay wasiir saxareed waa xaqiiq 4 inay soo dhameystiraan maxaa diiday ka sokow khilaafka madaxda dowladda waxaa hadda soo ifbaxay arinta galmudug soo ragaal celinta ururka ahlu sunna ee galmudug iyo xiisada colaadeed ee ka dhex aloolsan ahlu sunna iyo maamulka galmudug wasiir xareed saameyn noocee ah ayay ku yeelanaysaa doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa doctor mukhtaar iyo siyaasi cabdiraxmaan waxaan odhan lahaa meesha hadda ma ay yiraahdeen xoogaa waxa dibdhigaya doorashadii prime ministerka iyo madaxweynaha waxaan qabaa madaxweynuhu inuu meesha mar hore ka baxay meel fagaaraa buuna ka yiri taladii waan wareejiyey laakiin anigu waxaan qabaa 5 maamul goboleed
iyo prime ministerka ayaa laga sugayaa doorashada inay dhammaystiraan. taa intaasaan uga noqon lahaa oo doctor mukhtaar uu yidhi saysidka xoogaa keen. marka tan galmudug way husaynaysaa doorashooyinka haddii dhibaato dhacdo. ilaahay waxaan ka baryaynaa ooan ilaahay ka baryaynaa inaan dhibaato dhicin. waqti adag baa lagu jiraa, jiilaal baa lagu jiraa. muxuu ahaayeytu waa dadka iyagii wax ishor fadhiya. wax la isku haystana ma garanaysid. xagga iyo xaggaba waa kaa dhimay weeye. way husaynaysaa haddii dhibaata dhacdoo dagaal dhaco. warar fiicanna hadda ilaa galabta waana soo gaarayeenoo in lagu dhex jiro aan dhibdhici doono insha allahu, iyadaanan ilaahay ka baryaynaa. laakiin waxaan tala ku bixinaynaa oo anigu shakhsiyan xareed ahaan tala ku bixinayaa meeshaas maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor inaan dhib ka dhicin oo aan dadka masaakiinta la weerarin. ahlu sunna waljamaacana waxaan leeyahay culimmadii baa tihiin. ahlu sunna waljamaaca koox yar ma tiidin oo gurceel keliya joogta. soomaali oo dhan baad matashaan ahlu sunna waljamaaca. ka daaya dadka dhibaatada iyo xabadda iyo meel yaroo tuulaa intaad god ka qodataan aad tidhaahdaan halkaanaan joogo. dadkii oo dhan ahlu sunna waljamaaca marka intii naasuu noqonaya gurceel fadhida. haddii kale ka daaya dadka dhibaatada. meeshaas maamul baa ka jira, maamulka la heshiiya. maamulku waa ahlu sunna waljamaaca laftigiisa ah, soomaali oo dhan baa ah. marka wixii adinku ha ka dhiginina wax khaasa. hadday doorasho waxyaalaha hadda keenaya dhibaatadaana qayb bay ka tahay. doorashadan dib u dhacaysa oo sii dheeraanaysa oo waqtigu sii dheeraanaya qayb bay ka tahay in konfliktigaas yimaado, khilaaf yimaado, kuwo kale soo baxaan. haddaan wixii lasoo afjarin waxa weeye qayb bay ka tahay dhibaatadaas. waxaan siinayaa cabdiraxmaan jimcaale. wallahi adeer waa arrin maxaan ku idhahdaa dhibkeeda leh markii la fiiriyo waqtiga kusoo beegantay iyo maxaan ku idhahdaa xaaladda iyadoo xaalad jiilaale iyo xaalad doorasho lagu jiro in maxaan ku idhahdaa kacdoon noocaas uu ka dhexbaxo kasoo dhexboodo waa aadaan uga xumahay. marka waxaa looga gudbi karaa oon arrintaas in aqligu shaqeeyo. hadduu aqligu shaqeey waayo maxaan ku idhahdaa marxalad kasii adagaa la gela. marka inuu aqligu shaqeeyaan labada dhinac buu ugu baaqayaa. aqligu ha shaqeeyo walaalayaal. xaaladda haddaan la gebagabayn oo la dedejin maanta waa ahlu sunna birina waxaa ka imaanaysa maxaan ku idhahdaa wax kale oo magac kale lahaa imaanaya. marka maalinbaba waxaan sugaynaa inuu magac yimaado, maalinbaba magac yimaado. magacaas imaanaana cid baa ku faraxsan oo maalin dheeraysuu yahay oo ciddii extension laga diiday in maxaan ku idhaha maalin walba caqabado xagga galbeed ka timaada, bari ka timaada, oo raxsin ka timaada waa dana ugu jirta. marka aqligu ha fikiro. dadka maxaan ku idhahdaa waxaan leeyahay marka odayaasha matalaya qaranka madasha wadatashiga, walaalayaalow waxaad haysiinna adkeeya, waxa soo socdana ka hortaga, dadka soomaaliyeedna kaashada. waxaa maxaan ku idhahdaa qabtiin oo maxaan ku idhahdaa leediga sugaana dadka usoo gudbiya. intaasaanan ugu leeyahay. haye doctor mukhtaar. aniga waxaan qabaa fikir ahaan ahlu sunna soo noqodkeeda inuu ahaa arrin siyaasadeysan oo runtii ay tahay in rijinka iyo doorashada amnigeeda meesha ka jira in ciidan badan la geeyo. midda xigto amniga haddaad fiirisid guud ahaan waxaa roon meelihii loogu asteeyo oo halka maamul in doorasho lasoo saaro. mar walba waxaa la miisaamaa xaaladda iyo jawiga la fiirshaa. laakiin haddii la fiirsho hadda beledweyneha laga sugaya haddii la yidhaahdo beledweyne aysan waxbana ka dhaceynin oo jawharna wax ka dhacayo, jawhar in wax lagu qabtaa wanaagsan si ummadda soomaaliyeed horumar loo gaaro. maaha in caqabada la hortaagnaadaa. jawhar la sugaa, baraaba la sugaa, geda la sugaa, beledweyne la sugaa. ummadihii in laysku xirnaada lama rabo. waxaa la rabaa ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay hogaan cusub. tiina waxaan arkayaaba technicality delayed ayaa mar walba sii dhacayo. nimankaana xataa haddii hadda la door markas xafiiska ay fadhiyaan moor oo la sii daa moor ayaga faa'iida ay ugu jirto wey. golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya qoraal ay soo saareen dhowaan waxay ku sheegeen in ay walwal aada u weyn ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo tafraaruqa siyaasadeed ee ka jira dalka, oo ay sheegeen in xaalad hubanti la-aan dhanka doorashooyinka uu dalku galay. adigu taa ma aragtaa wasiir xareed? waa mahadsantahay saynab. waa ii muuqataa aniga laftigayga waa run caqabad muuqata weeye. midda aan qof kasta oo soomaaliya meel kastaa jooga uu welwel kaga qabana middaa weeye. marka dadku waa isku fikir weeye, isku sibayna u arkaan oo u cabirayaan.
waa run laakiin cidda wax laga sugayo weeye cidda lala hadlayo yaa wax laga sugayaa ilaahay ka sugo waxaa wax laga sugayaa waa 5 maamul goboleed oo laga fadhin waayey iyo prime ministerka oo hawsha lagu wareejiyey weeye 6daas laga sugo guddiga doorashada inuu la shaqeeyo ayaguna ay la shaqeeyaan laakiin anigu xaqiiqatan anigu ma ahi dadka ka warwareega xaqiiqda guddiga doorashada waxba gacan uguma jiraan maamul goboleedka bahashaas qortay ayagaa qortay 15 September 17 September 15 September ayagaa qortay waxooda guddi markaa ma jirin fiid ma jirin siid ma jirin waxa iyagu ay qoreen ayagaa laga rabaa inay fuliyaan oo ummadda ilaahay amaam Allah aakhirana waa la weydiinaya taas waa jirtaa walaacaasuna waa jira qof kasta Soomaaliyana waa qaba maanta doorashada Soomaaliya dhowr jeer bay dib u dhacday marar badan beesha caalamku waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka Soomaaliya la dhameystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada ma kula tahay Cabdiraxmaan Jimcaale in muddadaasi wax lagu dhameystiri karo meesha hadda taagan tahay mar haddaan joogno aniga waxay la tahay maxaan ku iraadahay in aan muddo sanadkan inta ka dhiman in lagu soo gabagabay kara doorashooyinka inta dhiman oo aqalka maxaan ku iradaa golaha shacbiga li'annahu maxaan ku iradaa hadda waxa samaysan hay'adihii loogu talagalay amba guddi doorasho noqdo kala duwan amba guddi xalin khilaaf noqoto amba hay'ad dawladdii maxaan ku iradaa madashii wada tashiga qaranka oo samaysan marka waxa caqabado maxaan ku iradaa wax caqabado way jiraan laakiin waa caqabado laga kaba karo hore looga socon karo marka waxaan aaminsanahay sida walwalka beesha caalamkana shacbiga Soomaaliyeed muujina annaguna waa muujinaynaa laakiin in lagu soo gabagabeeyo 20 waa arrin aan isleeyahay waa la gaari karaa ma adiga doorashadii waxaan aaminsanahay sida hadda meesha hadda joogto haddii hore loo socdo oo la dhaqaaqo inta dhiman sanadka amba waa la dhaweyna amba waa la dhamayna waa lagu guuleysana waa la dhamaystirayaa amba waa la dhaweyna iyadoo meel maxaan ku iradaa la garanayo ay joogto ayaa maxaan ku iradaa sanadku dhamaana amba iyadoo madaxweynihii la doortaa sanadku noo dhamaana insha Allah saasaan aaminsanahay anigu Dr. Mukhtaar Sayni walaal haddaad aan arrintan dib u dhac aan fiirino haddaad fiirisid nimanka hadda xafiisyada ku wada fadhiya dhammaan maamul goboleedyada nimanka seed iyo feed iyo intaba faa'iido ayay u tahay ayaga dib u dhac xataa hadduu yimaado waayo wax ka khasaarayana jirin totally sababtoo moor haddii doorashadan uu dhammaado shaqayntooda iyo howshooda waa laga soo guuraya maamul goboleedyada waxaa la imaanayaa xildhibaanadii hadda iska daba orodkan oo hadda maamul goboleedyada laga daba ordaayo iyo guddiyada la daba socdo iyo awooddaas horta meesha way ka baxaysaa sababtoo technicality waxaa imaanaya oo awood yarida arrintan ani waxaas leeyahay raalli bay ka yihiin farsamadan dib u dhaco ka imaanaya oo socdo caalamku mar walba hadlayay wax dhegaysanayaan jira nimankan ani waxaan is leeyahay raalli bay ka wada yihiin dhammaantooda in dibdhacaan iyo qorshahan socdo waxay wada ogyihiin weye ma aha wax oo iska socdo gabagabada barnaamijka faaqidaadaan isla soo gaarnay xareed xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro howsha harsan oo loogu dhaqaaqo doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha adduunka waxa hareeraheenna ka dhacayo Ethiopia ka dhacaya doorasho ka bilaabmeen marka inagii oo kala qaybsan oo wax badan jiraan haddana hadii la yiraahdo doorashadii awalba intaas 4 sano lagu wada socday 4 sano walba marba doorasho la qaban jiray kalsoonidu sidaas u soo socotay intii yarayd haddaynu gabno awalbayna bad iyo cir iyo dhul gacan ku haynin 4 sano soo socota haddaynu gabno tan waa laynoo talinaya saas noqonaysa laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa inaan laynoo talino inagu aynu tashano danteena aynu gaaro intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
saynab abukar maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay barnaamijkaasina iyada ayaa nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseena waa Washington. Haatana magaalada Muqdisho ayaa waxaa xaalada nolol adag oo dhibaatooyin ay ku haysataa dad badan oo naafa ah kuwaasi oo haatan sheegaya in ayaga oo horeyba xaaladahaasi ay ula daalaadhacayeen in haatan dhibaatooyinka ugu darsamay ay ka mid yihiin isticmaalka wadooyinka maadaama dadka kaxeeya mooto bajaajta oo aad Muqdisho looga isticmaalo ay wadaan dhalinyaro intooda badan aad u yaryar isla markaasina aanan tixgelinin dadka jilicsan ayaa la yiri ee naafada. Qaar ka mid ah hadaba dadkaasi ayaa la hadlay VOA-da waxaana warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow. xaaladda nolosha oo ku adag iyo dhibaatooyin ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka Muqdisho ayaa ah waxa ugu badan oo ay ka cabanayaan naafada ku nool caasimadda Soomaaliya. qaarkood ayaa tilmaamay inay aad uga walaacaan mararka qaarna ay halis kala kulmaan kolka ay rabaan inay gooyaan mid ka mid ah jidadka wadooyinka Muqdisho sababa la xiriira da'yarta kaxeeya mootada bajaajta oo aan fahansanayn baahidooda maadaama inta badan aan loo tababarin inay tixgelin siiyaan dadka jilicsan oo ay naafadu ka mid yihiin kolka ay wadooyinka marayaan sida uu ku waramayo Cumar Cabdi Cumar oo ka mid ah dadka lixaad kala ee ku nool magaalada Muqdisho. dadka aragala oo aragtaan 78 baa hadda idin ag fadhiya kuwa aad aragtaana oo rag iyo dumar bale hadda qofkaas meel lama gaari karo gurigu buu dhex fadhiya Ilaahay buu irsaaqadkiisa sugi iyo ummadda Soomaaliyeed dhibabku aad bay u badan yihiin waxa kamida kuwa biraha ku boodboodayo oo xataa birtii lagu boodaya aan lacagay ku goostaan lahayn xisaab maaragtay olahiina ka jajabeen baa kamida dhibabka badan baan qabnaa jidadka hadii la mari waad aragtay inta oo kun oo bajaaj baa lagu soo daayo ilmaha yar yar oo badda laga celinhayo loo dhiibay haddaad mar tiraahdo ma ka leexanayaan kuma sugayaan waa qasab hadayna ku jajabin inay garabka kugu dhuftaan oo adiga ulahaagu aad ku dhacdaan meesha dhib badan baa lagu qabaa wax tixgelina male naafadu Ilaahay un baa loola cawdaa meeshan aan iska jegmaa degmooyinka fogfog baan ka mid nahay. Ibrahim Maxamuud Axmed waxa uu naafo ka yahay labada lugood caqabadaha ugu badan oo la kulmana waa in gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya Muqdisho ay xoog ku dhaafaan isaga oo raba inuu raaco dhowr jeer waxa uu halis galay isagoo mid ka mid ah jidadka Muqdisho gooynaya ma isticmaalo kuraasta dadka naafada ah loogu talagalay ee dhaqaaqo taa beddelkeedana waa uu garguurtaa maadaama uusan awoodin inuu iibsado. wadooyinka markaan maray dhib weyn aan kala kulmaa dhibka jiro waxaa waaye baabuurkii raacaysid waa kaa urdaa adoo lacagtaa wadata beledkaasaa u shaxataga waa kaa urdaa bialka waa kaa urdaa kii wax garad iimaan lahaa kuu istaagay kii kale xurfu kugu guddaa iga istaag saxabo laamigaasaan kaa gooyo waa laga weysani adimaha ilaah ku siiyada ku faanaysiinaan ana ilaah foo oo sii kariyaan adimay qof dad adag oo kala camna iga istaajiyay oo walaal muslim Soomaaliya oo hadda la tacaalaysa heerkii saddexaad ee COVID-19 dadka naafada ah ma helin wacyigelin ku filan marka laga reebo fariimaha ka soo gaara shirkadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan xog badan oo ku saabsan halista xanuunka COVID-19 uu leeyahay. Cabdisalaan Macalin Mukhtaar oo ah gudoomiyaha ururka naafada degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in xubno ururkiisa kamid ahaa ay xanuunkan u dhinteen. bulshada anaga qayb kamid ahna Soomaa wax anaga bulsho ahaan noo tabi inta noo yimid war cudurkaas jira ka digtoonaada qaabka u dhaqma markii laga reebo fariimaha ee Hormuud iyo Samtel ay soo dirayeen iyo idaacadahan ka maqalna moogi wax xukuumad ama se dawlad ama degmo ama se magac dawlad sheegto oo inta noo yimid na wacyi geliyo arintaas jirtana yirmidna boqolaal nooga dhimatay ilaa 4 ilaa 8 ilaa 9 ogahay oo COVID-19 uu dilay. Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho.
barrow aad ayuu u mahadsan yahay. abaaro ba-an oo ku dhuftay qeybo ka mida deegaanada jubbaland ayaa galaaftay nolosha 10,000 oo xoolo ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha. mas-uuliyiinta waxay intaasi ku dareen in caqabadahaasi dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwa aada u ballaaran. wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad ayaa haddaba wuxuu wareystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali. guud ahaan dhibaato badan ka taagan oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka geeda markii total ahaan la isku daro looda dhimatay waa 22,000 intaadana soo gaartay. dhimashada geelana waa 9,000 saddexda gobol ee dowlad goboleedka Jubbaland sidaan ogaanay. dhimashada arigana waa 2,700. markii la fiiriyo xoolaha la rarto oo dameeraha oo kalena waa 300. sida daraadeed marka tirada guud waxay noqonaysaa 34,000 inay ku dhinteen abaarta ilaa hadda aan ognahay oo estimation aan sameynay dama dul istaageen laakiin sidaynu reportka noogu soo gudbiyeen dhammaan isku duwiyaasheena iyo reportidii assessmentigii aan sameynay qiimeyntii la sameynayay. wasiir bal waxaad nooga warantaa abaar baad ka hadashaan inta badan ama Jubbaland haddii la yiraahdo ilaa iyo hadda maxaa tallaabo ah oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guud ahaan maamulkaba ay ka qaadeen si dadka loogu gurman lahaa? waa su'aal wanaagsan runtii waad mahadsan tahay. runtii wasaaraddu dadaalkeeda ma yareen. runtii marka laga yaabo abaaraha horta inta badan way soo laabtaan oo waxa laga yaabaa adkaysiga dadka inay yar yihiin. dadka Soomaaliyeed dhibaato guud oo Jubbaland gaar ku ahaana jirto oo ah in marna dadka ay ka qaxaan biyo oo fatahaad ay ka qaxaan marna ay abaar ka qaxaan. marka de arin guud oo dhibaato guud oo jirto waa horta taas waa wax rabaani oo aan waxba kama qaban karno laakiin si guud oo siyaasad guud in laga yeesho bay u baahan tahay. wasaaraddu ka wasaarad ahaan anagu xanaanada xoolaha waxaan sameynay baaritaano lagu xaqiijinayo markii ay soo ifbaheen inay jiraan xanuuno oo dhanka geela ah. waxaan isku daynay in la xiriirno wasaaradda federaalka. runtii saad loo socoto waxaa jirto siyaasadda caafimaadka xoolaha wasaaradda federaalka nooga wakiila. sababtoo anaga state maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalkana markii dhibaatooyinka ama waxyaabaha siyaasadda federaalka saameynaya tahay ayagan xiriir kala sameynay ayagan kala xiriirnay tiro dhowr jeer aan kala hadalnay sambalki dhiigi waan qaadnay. wasaaradda federaalka way ku mahadsan tahay intii tabarteeda hay'adda noo sheegtay inay soo gudbisay laabkii qaranka ayaa jiro shaybaarka markii la fiiriyo waxa la Rift Valley kaliya laga baari karaa. way samaysay wasaaradda dadaalkaas way samaysay baaritaanka way samaysay mar ayaa shir jiray oo la isugu yimid oo dowladaha Ethiopia iyo Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadeen xanuunadan geeska Afrika oo geela laga hadlayay. marka siyaasad ahaan dowladda federaalka anagana matasho waxa la yiri dhiig inta la qaado wadanka lagu soo baari karo siyaasad ahaan waxa laga yaabaa in arrimo kale ay jiraan. marka anaga wixii dadaalkeena ahaa ka isteed ahaan waan sameynay. waxaa jiray abaaraha markay yimaadeen laftarkooda xeerka ay gaarsiisan yihiin waa la soconay dhaqdhaqaaqooda qiimeynaan sameeynay wixii karaankeena wasaaraddu waxay samaysay dawooyin yar bay sameynaysay. gobolka Gedo oo kale ilaa 60,000 oo neef baa lagu daweeyay oo hay'adan DRC aan la kaashanay. hadda laftarkeeda hay'adihii waxaan sameynay marka assessment qiimeyn aan sameynay wasaaradda inta karaankeeda ahana way qabatay inta kale hay'adihii aan la wadaagnay. markaad fiiriso awoodeen way ka baxsan tahay abaaraha hadda jiro awoodeen way ka baxsan tahay. marka waxay u baahan tahay in si guud loogu gargaaro dadkii abaartii gugiin waa la soo dhaafay deertin weli hubinti la'aan ka jirto in roobkii dii doona in kale Allahu a'lam laakiin waxaan rajaynaynaa in yani dowlad goboleedka Jubbaland waa u qoorgalay runtii golaha wasiirada waa laga sheegay arintaas dowladda siyaasadda ay ka leedahay hase ahaatee waxyaabaha dhibaatooyinka guud markay dhacaan in loo wada gurmaday u baahnanaysa wax gooni ah ama wasaarad gooni ama qaban karto ma jiraan laakiin annaga waxaana saaran dhibaatada taagan iyo waxaan ka qaban karna inaan marna ka hagarsan. wasaaradda xanaanada xoolaha maxaa ka hortaagan in sidan oo kale abaaruhu ay u diyaar garowdo? waxaa looga bartay wasaaradaha oo kale xanaanada xoolaha inay ka diyaar garoobaan abaaraha sidan oo kale markay dhacaan oo calafka xoolaha la diyaariyo. maxaa wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland u diiday in calafkii xooluhu ay diyaariso? waa su'aal aad u muhiim ah. waa qorshaha way inoogu jirtaa hase ahaatee saad la socoto dalka Soomaaliya dowlad dhisidiisa weli meeshii la rabay ilaa maanan gaarin oo waxa laga yaabaa xaalada amni inay jiraan duruufo dhaqaale kale inay jiraan. saad la socoto aniga muddo hadda waxaan joogaa ilaa dhowr bilooda intaasna waan wadnay hawshaas inaan sidii dadka at least hadhow markii ay beerhii iyo ama daaqi u fiican yahay in keed ay u helaan calaf ama xoolahooda dadka ay u dhaqan lahaayeen inaan ka fikirno. hase ahaatee marka waxaan la soo goobsanay runtii abaar ayadoo jirto oo culeysyo ay jiraan laakiin siyaasadda wasaaraddu way ka mid tahay in waxaa jiray daaqi qaranka barnaamij la yiraahdo oo wasaaraddu xanaanada xoolaha waxay leedahay dhul weyn oo loogu talagalay daaqa
waxay leedahay meelo biyo loogu talagalay biyo xireeno barnaamijyo badanaa jiro laakiin de weli capacitygii wasaaraddu maanan gaarin inaan hadda aan sameyno barnaamijyadaas laakiin waan ku tali jirnay qorshayaashan waa ka mid yahay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayuu kaasi ahaa bal markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanno fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatar iyo heeska Xayaat magaalada Washington waa Jimce October waa 15 sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggan internetka ee voasomali.com idaacadda